أنا صندول كان مضحى دلالة لنا كوفرتي برتمها الصومالية أرمها دلالة إن مدة كسر دحجري وحن مانتا همبليو كلي لابا هنودريا maalinta dhalinyarada adduunka laakiin dalkan waxa iska leh Soomaaliya adiga laga rabo inaad madax ka gudbiso runtii waxaan maanta oo 12 Agosto 12 Agosto 2017 u dirayaa baaq dhammaan dhalinyarada weynaha adduunka gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldagayo maalinta dhalinyarada adduunka u dabaaldagayo waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa Allah idinku gaarsiiyo bashbash iyo baraare iyo horumar iyo isbedel wanaagsan oo aad ka sameysaan howlaha aad ummadda u haysaan si khaas ah waxaan ugu hambaleynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan wadanka runtii waa maalin qiimo leh ay wax ku leeyihiin waxa loo baahan yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan ay midoobaan isku tagaan wadankooda maantay runtii wuxuu yeeshay dariiq wanaagsan oo lagu soo celin karo nabadii iyo muxuu ahaa wanaagii oo Soomaaliya ay lahayd ay namudneed dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo inta ku hadasha Soomaaliga magac iyo muuqaal leh dalka dibadiisana joogta waxaan leeyahay aan ku noolaano nabad nabad dalkan noo ogolaano nabad inaan nabad helano aad baan u rajaynaynaa insha Allah maanta maalmihii hore ka duwan tahay sanadkooda ka duwan tahay sanadka soo socdana wuu ka duwanaan doonaa kan hadda jira wax walbana waxay u baahan yihiin ficil muujin iyo dhaqaajin in la isku helo dadka ugu badan ama Soomaalida waxa lagu tilmaamay 75% inay dhalinyaro sida darteed anaga mar walba waxu taaganahay inaan dhalinyarada aan horumarkooda iyo aqoontooda iyo xirfadooda iyo awoodooda intaba aan cadeyno inaan waliba aan mar walba u taagnaano inaan soo saarno dhalinyaro mustaqbalka wadankan noqon karta kuwa ugu awoodda fiican ee Afrika iyo adduunka intaba marka maanta waa maalin qaali ah qof walba dhalinyaro aan waxaan rabnaa ama meel walba ha joogo maaragtay inaan aan kala qayb qaadano farxadda